wanaagsan walaalayaal. Waa codka abuur cusub iyo barnaamijkeenii kebis maalin nagu filan. Maanta mawduucana wuxuu noqon doonaa ama ciwaanka barnaamijkeena wuxuu yahay naftaada la hadal. Ay hoob ugu karsoo dhawow. mahadsantahay nuur waa idin salaamay dhammaan dhegaystayaasha ina dhegaysanaya waxaan idin leenahay soo dhawaada maanta waxaan ka hadlaynaa mawduuca naftaada la hadal waa mawduuc cajiiba waxaa ognahay in dadka oo dhan naftooda ay la hadlaan oo isla hadlaan oo gudaha ay iskala hadlaan laakiin muhiimadda waxay tahay maxaan iskula hadalnaa maxaan nafteenna u sheegnaa sidee ula hadalnaa dadka macnaha way isla hadlaan. runtaa waa hadda kor waxaan maqlinaa wuxuu dhahay dadka oo dhan way isla hadlaan laakiin kuwa hadalkooda banaanka usoo bixiya waxaan dhahnaa waa waalantiin. hebel macnaha isla hadlaya la dhahaa mugta wuu waashee laga wadaa. marka ninka wuxuu dhahay dadka dhan way isla hadlaan aniga gudaha iskala hadlaan laakiin kuwa hadalkooda banaanka usoo bixiya waxaan dhahnaa waa waalantiin. runtii qof walbuu isla hadlaa oo inta aan aamusannahay dhan maskaxdeena way shaqaysaa laakiin maxaan kula especially marka dhibaatooyinka aan marayno maxaan nafteenna u sheegnaa xataa biblekuu noo sheegayaa haddaan fiirino kitaabka sabuuradda 42:5 dabcan sidaa u naqaano sabuurka waa nabi daawud marka wuxuu leeyahay wuxuu dhahayaa aayadda 5 naftaydoy bal maxaad u murugaysan tahay oo bal maxaad gudahayga ugu rabshaysan tahay ilaah ku kalsoonow waayo weli waxaan isaga u ammaanayaa caawimaadda weligiisa so wuxuu ina tusayaa bibleka xataa in nafta lala hadlaayo oo lala hadlaayo marka kitaabka ayaana tusaaya taas haddaan soo qaadano kitaabka sabuurka waxaa ka baranaynaa sida daa'uud uu naftiisa kula hadlay ya marka ma noo sheegi kartaa waa maasan tahay horta waxaan rabaa inaan isla fiirino cutubka 103 horta sidaa sheegtay dadku nafteena waa la wada hadlan. kitaabka quduuska horta wuxuu noo sheegaa kitaabka quduuska waa hadalka ilaahayna wuxuu usoo degay bini aadanka wax walba oo bini aadanka ku dhaco halkeedu ayuu noo sheegaa kitaabka ma inkiraayo inaan nafteena la hadalno laakiin habka ula hadli lahayn ayaan macnaha meeshaan maanta aan dul istaagaynaa oo sababtaas waa ciwaanka ugu bixinay naftaada la hadal. marka waa noo aqrinaya cutubka 103 kitaabka zabuurka aayadda 1 ilaa 14 ayaa noo aqrinaya kadib waa isla fiirinaynaa. wuxuu leeyahay naftaydu rabbiga ammaan oo inta igu jirta oo dhamay ammaana magaciisa quduuska ah. naftaydu rabbiga ammaan oo ha iloobin wanaagga uu kuu sameeyo oo dhan. isagaa kaa cafiyey dembiyadaada oo dhan oo kaa bogsiiyo cudurradaada oo dhan oo naftaada ka badbaadiya halligaadda oo raxmad iyo naxariis kugu barakeeya oo kaa dhergiya waxyaalaha wanaagsan si ay dhallinyarnimadaada ugu cusboonaato sida gorgorka oo kale. rabbigu wuxuu falaa xaqnimo gar buuna u gooyaa kuwa dulman oo dhan. isagu wuxuu muuse garansiiyey jidadkiisii reer bani israa'iilna filimihiisii. rabbigu waa raxmad badan yahay waana nimco miiran caro wuu u gaabiyaa waana naxariis badan yahay. isagu had iyo goor wax canaanan maayo oo sii caraysnaan maayo ilaa weligiis. isagu inoolama u macaamiloon sidii dembiyadeennu ahaayeen oo inooguma u abaalmarin sidii xumaatooyinkeennu ahaayeen. waayo sida samadu dhulka uga sarrayso sidaas oo kale naxariistiisu ugu weyn tahay kuwa isaga ka cabsada. sida barigu uga fog yahay galbeedka sidaas oo kaleu xadgudubkeenna inooga fogeeyey. sida aabbe carruurtiisa ugu naxo oo kale ayaa rabbigu ugu naxaa kuwa isaga ka cabsada. waayo abuuristeennu og yahay oo wuu xusuusan yahay inaan inagu ciidna. aamiin waxaan arkaynaa daa'uud naftiisuu la hadlaaya oo naftiisuu xasuusinaya naftaydoy rabbiga ammaan ya oo inta igu jirtoo dhamay ammaan magaciisa quduuska haddana wuu ugu noqaya naftaydoy rabbiga ammaan oo ha iloobin wanaagga uu kuu sameeyo oo dhan. so daa'uud naftiisuu la hadlayaa laakiin naftiisu wuxuu soo xasuusinayaa
inay ilaah ku ammaanto wanaaga uu asaga u sameeyo dadka badanaa way iloobaan wanaaga ilaah u sameeyo markaan dhibaataysannahay iyo markaan nimcada ku barwaaqaysannahayba ma soo xasuusano marka noo faahfaahi balba wanaaga ilaah uu daa'uud naftiisa xasuusinayo adaaba noo sheegay aayad 1 iyo 2 wuxuu uga hadlayaa daa'uud wuxuu leeyahay naftiisu wuxuu ula hadlaa sida qof kale wuxuu leeyahay nafteedu rabbiga ammaan marka rabbiga ammaanta ay ku ammaanayso ayuu aayadaha xiga oo dhan macnaha uu ku sheegaya tusaalehaan aayadda 3 ilaa iyo 6 macnaha wuxuu leeyahay sababuhu sheegaa macnaha horta waxa waaye annaga dee wax walba haysano ilaahay ka yimaada wax walba aragno wax walba oo barwaaqe wax walba oo dunida yaalo dhan ilaaha iska leh marka asaga wuxuu xasuusinayaa daawud marka oo ay tahay inaan ka baran annagana wuxuu leeyahay aayad 3 wuxuu leeyahay korta kow sababuhu sheegaa nafta ay tahay inay ilaahay u ammaanto wuxuu leeyahay isaga horta ka cafiyo dembiyadaada horta anaga nafteena dembi yeelanahay ilaahay marka ugu horeyso waxa ugu weyn oo noo sameeyo waa inuu dembiyada naga cafiyo wuxuu leeyahay midda labaad wuxuu leeyahay asaga kaa bogsiyo cudurrada waa ognaa xanuun dhibaatadu leeyahay wuxuu leeyahay cudurradaada asaga kaa bogsiyo midda saddexaad wuxuu leeyahay naftaada wuxuu ka badbaadiyaa haligaada midda afraad wuxuu leeyahay wuxuu ku darayaa wuxuu leeyahay raxmad iyo naxariis ayuu kugu barakeeyaa macnaha wuxuu leeyahay ilaahay raxmad iyo naxariis uu kugu barakeeyaa wuxuu kaa dhirgiyaa uu leeyahay waxyaalaha wanaagsan oo dhan daawud wuxuu naftiisa xasuusinayaa wax walba oo wanaagsan oo haysatid inuu kaa dhirgiyo ilaahay wuxuu leeyahay marka aayadda 6 marka wuxuu leeyahay rabbigu wuxuu fala xaqnimo marka sababta ay tahay inuu naftiisa uu leeyahay ilaahay waa inaa u ammaantid oo nafteenna ay tahay inaa ilaahay u ammaano wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu fala xaqnimo gar buun u gooyaa kuwa dulman marka meelo badan uu ku soo qaadanayaa wanaaga ilaah tusaale ahaan hadda cutubkan aayadan 1 ilaa 14 ugu yaraan 18 mar in ka badan ayaa waxaa ku jirta wanaaga ilaahay marka intaan hadda wuxuu leeyahay xaqnimuu sameeyaa gar buun u gooyaa kuwa dulman xataa haddii aan dulmanahay oo dhibaato in haysato macnaha oo nala dulmiyey ilaahay nafta wuxuu leeyahay waa inaad ku kalsoonaatid waayo asaga ayaa garta u gooya kuwa dulman gartaada ku siinaya xataa haddaad dulman haddii biniaadamku dulmiya oo dad kale ku dulmiyaha asaga garta ku siina amiin naftiisa wuxuu tusayaa marka inay garato wanaaga ilaah haddaa xataa sii akhrino aayadda 8 wuxuu leeyahay rabbigu waa raxmad badan yahay waana nimco miiran caro wuu u gaabiyaa waana naxariis badan yahay bal fiiri daa'uud wuxuu naftiisa xasuusinayaa uu leeyahay rabbigu wuu raxmad badan yahay waana nimco miiran caro wuu u gaabiyaa waana naxariis badan yahay marar badan ayaa ilaahay waxaan ka haysanaa fikrad ah wuu caraysan yahay wuu noo xanaaqsan yahay يعني لكن أصله وحو نفتيس وتسويا ونتسويا إنه إلهي عرض وقابي ونحريستيس أي بدن تاني سو نحريستيس أيو فوكس كسارو ويعني وكوكر سونانو وفيرينو يا إن هدان فيرينو آيات الطبنات وحولي هاي إساو إنه لما معاملون sida dambiyadeenna ahaayeen oo inooguma uu abaalmarin sida xumaatooyinkeenu ahaayeen so kowna wuxuu leeyahay ma ogtahay asagaa dambiyada kaa cafiya mar walba waa inaan haysano rajo ah inuu ilaahay noogula mucaamiloonin sida annaga aan istaahilno hadduu ilaahay dembigan falnaba noogu abaalgudi lahaa oo noola macaamuloon lahaa sida laba nin oo iska soo horjeeda qof noolaan lahaa maba lahaynba adduunyada soo maaha waa kitaabka wuxuu dhahaa xataa moogtahay ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu dadka xataa anagoo dembi ku dhex jirno mar walba dembi samaynayno waqti uu noo siiya waayo ma doonayo inay qof la dhinto waqti uuna siinaa waqti naxariistiisu waa badan tahay fiiri xataa ilaahay markuu nala macaamiloonayo maaragtay sidoo noola dhaqmaa asaga ayadana jecla 13 sida aabe sida noo akhri waxay leedahay sida aabe caruurtiis ugu naxo oo kale
ayaa rabbiga ugu naxaa kuwa isaga ka cabsada fiiriya macnaha waxay na tusinaysaa sawir ah aabaheen hadda aabaheen anaga mana dhibaateynaya dhibaato ma noogu fikrayo marka ilaahay marka sawir wuxuu naga siinayaa asaga aabayaasheen iyo anagaba na abuuray sawir wuxuu naga siinayaa qofka noogu dhow oo na dhalay aabaheen waaye ama waalidkeen wuxuu leeyahay sida saas uu ugu naxo carruurtiisa ayaa rabbiga ugu naxaa kuwa isaga ka cabsada because aabba waxa waaye markuu cunugiisa uu qaldan yahay wuu soo noqaa oo wuxuu u canaantaa mataqaanaa inuu wanaag uu helo uu ku socdo uma canaanto inuu kasoo horjeedo xasidnimo inuu baabi'iyo inuu uu rabin cunugaas inuu dilo uma canaanto laakiin ilmaha waxaa loo canaantaa si loo soo celiyo oo jidka xun ama dhibaatadii naftooda u geyn lahaayeen oo looga soo celiyo oo uu wanaag oo asaga u fiican uu ku socdo soo saasuu noo tusayaa marka sida aabe caruur ugu naxo oo kale ayaa rabbigu ugu naxaa isaga kuwa ka cabsada so ilaahay wuu noo naxaa daa'uud wuxuu noo sheegay kitaabka wuxuu noo sheegayaa in rabbigu uu naxariis badan yahay inuu caro u gaaban yahay oo inuu noola macaamiloonin sida dembiyadeenna ay tahay ya inuu sida caruuroo kale ya uu inoola macaamilo aayadda 14 haddaan fiirino sabab ilaahay caruur camal noola macaamiloonaya uu inoogu naxariisanaya uu inoogu wanaagsan yahay uu dembiyadeenna u cafinaya uu noo caafinaya sabab wuxuu leeyahay waayo abuuristeenu og yahay oo wuu xasuusan yahay inaan inagu ciidnahay asagaabana abuuray wuu og yahay tabardaradeen iyo waxaan ka samaysannahayba marka ilaahay mar walba asaga waaye ka nacaawiya oo ku habboon inaan asaga ku orodno marka nafteennana waa inaan soo xasuusinaa mar walba wanaagga ilaah uu noo sameeyo marka aayadan aaday uga buuxaan wanaagga ilaah inoo sameeyo midda kale waxaa waaye haddii oo anaga bini aadan haddaan nahay mogtahay wixii waa iskala qabsanay laakiin hadda haddaan ogaano oo kale wax walbo in ilaahay uu si shaqsiya noogu sameeyo haddii aan ka soo qaadno tusaale ahaan haddaa maanta subax markaa soo kacno qorraxda aan aragno qorraxdan yee macnaha usoo baxdaa waxay noo soo baxdaa anigoo ilaahay qorraxda iisoo saara haddaa niida gashatid dabeeshan anuu ilaahay ii sameeyey aniga shaqsi ahaan ii sameeyey haddaa dhahdid maanta jawigan quruxda badan leh hawadan aniga shaqsi ahaan ii sameeyey waana run qof walba shaqsi ugu sameeyey markaas waa garanaynaa ilaahay macnaha qofka uu noo yahay run ahaantii oo iyo wanaagiisa marka aayadaha marka waxay leedahay waaba isla sheekaysanaynaa annaga laakiin mar walbo haddii dhibaata timaado iyo haddii barwaaqo lagu jiraba waa inaan mar walba iskula sheekaysano wanaagga ilaahay noola dhaqmo sida caruur oo wanaagsan yahay asagana uu yahay dee asaga lee waaye qofkana caafin karo asaga lee waa kuwa kan dhibaatada naga badbaadin karo asaga lee waa kan dembigeenna dhaafi karo marka inuu asaga noqdo meeshaan cadowgana mar walba maskaxda naga soo weeraraa cadowga ibliiska mar walba wuxuu ku leeyahay wax ku caawi maysid ilaahay wuu ku caraysan yahay dembiilaa tahay baroble dhibaataa ku haysato kama baxaysid dhibaatada cudurkan kama bogsoonaysid baxarkan waa ku jirtaa cid kaa saaraysa male laakiin markaas maskaxdeena meesha goobta dagaalka halkaas waaye inaan mar walba nafteena xasuusino aan dhahno nafteydoy rabbiga ammaan mar walba oo wanaaggiisa xasuus ah amiin amiin marka marka waxa waaye waa mahadsantahay Wahab Abuukar xaaskaygaan jeclahay maantay walaalayaal cashirkeena waxaan kusoo gabagabeynaynaa Matthew injiilka Matthayos cutubka 5 aayadda 7 rabbi masiix wuxuu dhahay waxaa barakadaysan kuwa naxariista leh waayo waa loo naxariisan doonaa rabbiga ballanqaad halkan ku sameynaya waayo naxariista iyo ka timaada hadda inta akhrinayna wanaagga ilaahay waa naxariis iyo raxmad badan yahay ilaahay wuxuu doonayaa inaan sidiisoo kale noqono rabbiga marka wuxuu leeyahay waxaa barakadaysan kuwa naxariista waayo kuwa naxariista leh maxay sameynayaan shuqulka ilaahay sameynayaan annaga marka aan shuqulka ilaahay sameyno waa barakaysannahay rabbiga wuxuu leeyahay waa laydin naxariisan doonaa ilaaha baaba ugu dayanaynaa waxyaalaha wanaagsan uu sameynayo aad iyo aad marka aayadahan waxay na barayaan nafta inaanan u ogolaanin waxyaalahay rabto inay na tusto laakiin annaga aan ula hadalno qof kale oo kale oon dhahno may
ha igu dhex walwalin Ha igu ha dhex igu walwalin. dhex murugoonin Mm. ogow Mm. ilaahaaga inuu Inuu yahay yahay mid ilaah wanaagsan. wanaagsan marka ilaah waa wanaagsan wanaagsan yahay aamiin aamiin iyo midda kalena waa taasna waxa waaye midda kalena waa inaada nafteena xataa aan ka yeelin hadee waxa dembiya xataa aan ka yeelin sida qof kale aan ula hadal nafteena aan dhaano iga jooji kaamil yeelaya markay noo kaxaynayso markay dembi markay noo dembiyada iyo kaxaynayso inaan xumaanta. ka diidno naftaada hadday ku tira qof hebel u caro inaan ka diidno markayna tiraahdo qof hebel xamo inaan ka diidno markayna tiraahdo waxaas ka walwala inaan ka diidno marka wax walba macnaha nafteena inaysan hogaamin laakiin hogaamiyahan uu noqdo rabbiga aayaddiyaa soo xasuusanaya dhehayso sida aabihiin u san yahay usanya u samaada aamiin Amiin. isla waxay ku jirtaa cutubkaas maatiyo aamiin marka hoob abuukar waa mahadsan tahay walaalayaal aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tihiin waqtigiina qaaligaana siiseen maantay casharkeen intaas ayaan kusoo gunaanadeynaa ilaa iyo inta casharka xigo waxaan idinkaga tegaynaa nabadda masiixa ha idinla jirto dhammaantiin